Xoghaya Ramaax ee xisbiga mucaaradka ee Ucid Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Boorama ayaa waxa uu markii ugu horeysay uu ka hadlay xaaladda guud ee ku gadaamay gobolka Awdal gaar ahaan deegaanada xeebaha gobolka oo baryihii u dambeysay ay kolonyo ciidamo ay ku sii qulqulayeen waxaana Xoghaya Ramaax ee xisbiga mucaaradka ee Ucid Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo arinta ka taagan waqti xaadirkan deegaanadaasi uu ku dhaliilay xukumada uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo xukumada ugu baaqeen xal deganaanshaha laga gaaro arintaasi inaan dhowr kalmadood ka yiraahdo xaaladaha ka taagan ama xaaladda ka taagan gobolkan khaasatan arinta ka taagan xeebta oo aad moodo in si loo buunbuuninayo iyadoo waajibkii ay lahayd aanay marnaba ka marin xukuumaddu aanay ka marin iyo sidii la isugu wadi lahaa dadweynaha walaalaha ah ee wada degan deegaamadaasi runtii waa ogtihiinoo gobolkan waxaa ka dhacay mar abaaro baani ka dhaceen iyo markii duufaanka waxay keeneen oo in dad badan ay ka barakacaan ama ku caydhoobaan xoolahoodii tiiyada ahayd waxay keentay in ilaahay meelaha qaarkood biyo ka soo saaro dooxaan biyo lahayn oo biyo laga helay inay xukuumaddu siyaasad ka lahaataa bay ahayd in la yidhaahdo maanta degaamo dhan oo jira oo dad degan yihiin baa la baabi'inayaa runtii oo weliba si hawl yar loo dhammayn kari lahaa nabadgelyana lagu wada joogay in la buunbuuniyo oo ragga xukuumadda ka midi ay yidhaahdaan way ka xun tahay ceelaf weyn maanta Boorama way ka xun tahay arrinta ka taagan runtii waa nasiib darro waxaan u aragnaa inay tahay buunbuunin iyo waxaan jirin oo la siyaadinaya lama yaabayo dhawaaqa ka soo baxaya odayaasha waxay arkayaan qaabka loo maamulay ee aan waafaqsanayn nidaamkii dawliga iyo kii dadka isku degaankii ay runtii ku wada dhaqmi jireen sida daraadeed anigoo ku hadlaya magaca xusbigayga waxaan leeyahay ama ra'yiga aan ka qabno arrintan in nabadgelyada la ilaaliyo waa maqlaysayno wasiirka arrimaha gudaha kula ciidamadu waxay meesha ka dooneen garan mayno ciidamada ciidina meel uma diidayso meel walba way joogaan waa gobol somaliland ka mida waa degmo ka mida nabadgelyada inay sugaana waa xaq bay u leeyihiin cid ma jirto hase yeeshee waxa qariban marka ciidanka ujeedooyin gaara oo cid lagu dhibaataynayo loo adeegsanayo taasna waxaan leenahay ha laga waantoobo Booramana maaha waa gobolka gobolada ugu degan ayuu runtii ka mid yahay ee waliba aad iyo aad u jecel nabadgelyada iyo wada noolaanshiyaha dadka sida daraadeed waxaan leeyahay xukuumaddu ha ka fiirsato go'aamada iyo hadallada qadafka ah ee runtii ummadda lagu kala fogeynayo dadka meesha wada deganina waa dad walaala waxa la waajibkoodii ay gudan waayeen ay marka xukuumaddu sidaa u hadlayso runtii ku qarinaysaa aadna waan ugu dhaleecaynayaa dhanka kale Xoghayaha oo hadalkiisa sii wata ayaa isdul taagay guddi uu dhawaan madaxweynuhu u magacaabay dejinta xaaladaha ka aloosan deegaanada xeebaha ee gobolka Awdal isagoo guddigaasi ku dhaliilay guddidaasi in laga muujiyo cabatinka weegeyday waxaana u geeyeen waana taanu leenahay xukuumaddiiba waxweeyaan marka aanad xog dhaba ka haynin ama waajibaadkii aad lahayd aanad qaadanaynin xukuumaddu horta waa inay fahantaa hadday magaalo tahay iyo hadday bannaan tahay iyo hadday beer tahayba inay degaamadani iyo dhulkuba uu yahay mid gacanta dawladda ku jira markay taa u garraqayaan waa laba beerood meel biyo cusub laga helay oo laba beerood laga samaystay ayaanu dadkii wada dejin kari laanay mid laga siisanaya maaha tii horena way ku qaldanayd in laga cawdana xaq baa loo lahaa maantana tani xal keeni mayso Axmed Muuse Sheekh Xasan Axmed buri wararka telefishinka Sahan magaalada Boorama.